maleeshiyada al-shabaab ee weerar ku qaada xarimaha dawladda iyo hoteelada muqdisho waxay inta badan soo xidhaan direyska ciidanka haddii ay yihiin kuwa militariga nabad sugidda iyo booliiska markii ugu dambeysay al-shabaab ay ku weerar tagaan labiska ciidamada dawladda Soomaaliya waxay ahayd 23kii bishii aynu soo dhaafnay ee Febraayo markaasi oo laba weerar ay ka dhaceen magaalada Muqdisho weerarka hore waxa loo adeegsaday qarax baabuur waxaana uu ka dhacay meel u dhow taliska xarunta nabad sugidda weerarka labaadna waxa loo adeegsaday qarax waxaana daba socday maleeshiyo hubaysan oo isku dayday inay jiraan bar kontarool oo laga gala madaxtooyada markii uu haddaba soo dhamaaday howlgalka ee ciidamada amnigu ay toogteen maleeshiyadii ururka al-shabaab waxaa sawirada laga qaaday maleeshiyada al-shabaab ka muuqatay inay wateen direyskii ugu dambeeyay ee loo keenay ciidamada booliiska baaritaan ay samaysay idaacadda VOA waxay ku ogaatay in weerarkaasi markii uu dhacay kadib ay taliska booliisku ka codsadeen saraakiisha booliiska ee gobolada inay soo tira koobaan dhammaan direyskii la siiyey sida ay ogaatay idaacadda VOA dhammaan gobolada dalku waxay soo tabiyeen in labiskoodu uu dhan yahay marka laga reebo taliska booliiska ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo sheegay maqnaanshaha 10 joog oo ah labiskii cusbaa ee ugu dambeeyay ee la siiyo booliiska waxa intaasi dheer oo VOA ay baaritaankan ku ogaatay in mid ka mid ah saraakiisha booliiska ee gobolka Bay uu taliyihiisa u sheegay maqnaanshaha labiskaasi ugu yaraan bil iyo bar ka hor markii uu dhacay weerarka magaalada Muqdisho Febraayo 23keedii sarkaalkaasi booliiska ah waxa uu ahaa taliyaha booliiska ee saldhigga magaalada Baydhabo gaashaanle dhexe Mukhtaar Axmed Ibraahim waxaana uu sameeyay wixii awoodiisu gaarsiisneed oo ah inuu labiska maqan ku wargeliyo taliyihiisa Generaal Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo ah taliyaha booliiska ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ani waa iska tiriyay tiradii ciidankaygana 10 ka maqanayday 10kiina generaal igu maay oo meeshan u sareeya u gudbiyay isigana taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed u gudbiyay marka horena yaa ku sheegay oo ku yiri intaasoo direysa ku soo gaaraysa iska xisaabi yaa ku dhahay saas waxa yiri nin cornel oo alaabta ma soo dhiibay oo gobolka Bay ka tirsan aadan baariyo liiraado Muqdisho joog in nin oo laba xiddigla isna karaaniga qeybta ahaa oo isagana ma leeyahay meeshii joog alaabta soo qaadiya tiradaas soo si gaashaanle dhexe Mukhtaar Axmed Ibraahim waxa uu ii sheegay inuu aaminsan yahay in labiskani uu ku haray magaalada Muqdisho waxa uu siiyay magacyada laba ka mid ah saraakiisha Koonfur Galbeed oo uu yiri iyaga ayaa Muqdisho dharkan ka soo anba bixiyay labadaasi saraakiil mid ka mid ah waa Cornel Aadan Baariyo oo ah taliyaha tababarka booliiska maamul goboleedka Koonfur Galbeed kan kalena waa laba xidigle Cali Aadan oo la sheegay inuu Muqdisho u diray taliyaha booliiska Koonfur Galbeed si uu dharkaasi u soo gudoomo ugu horeyn waxaan la xiriiray Cornel Aadan Baariyo oo ii sheegay inuu joogay meeshii lagu kala wareejiyay dharkaasi laba xidigle Cali Aadan ayaa baadhow lagu soo diray taliyaha qeybta gobolka Bay muxuu Bay boqol shabeelladoos ninka xukumo oo gaashaanle sare Mahad Cabdiraxmaan Aadan liiraa oo soo dirsaday laba xidigle Cali Aadan alaabta soo qaada liiraan maadaama aniga sarkaalkaas aan ka sareeyo gaashaanle sare ka tirsan qeybta gobolka Bay nahay goobjoogan ka laakiin dharku wax loo tirshay laba xiddiglaas oo baydhabo lagu soo diray ma garan adu goobjoog maad ka ahayd markii loo tiriyay ha dhar miyaa maqnaa markaas dhar ma maqnayn antii ani muxuu xisaabta gobolka oo loo ogolaayo waa loo tirsay taas goobjoogan ka ahay ma garan waa gartay laakiin saraakiishii oo Bay joogta waan la hadalay iyo Baydhabo waxay dhaheen dharku diyaaradda waxay soo degtay 10 labis iyadoo ka maqan tahay marka dharkaasi meel aan gobolka ahayn bay ku soo hadheen bay dhaheen dharkaas intii aan maalinta dharka marka la tiri maalinta dharka loo tiri sarkaalkaas maalin labaad hadda meesha tagnay markii uu dharka soo qaadanay aniga naftay waxa maqlay isagoo dharaa iga maqan saasuu yiri waa gartay dharaa iga maqan buu yiri marka aniga ma daba galin darkee sarkaalka maadaama qeybta Bay soo dirsadeen isugu mas'uulka ahaa dharka misiga loo tishay saarti isugu ahay maalintii aan qaadanay maalin labaad oo diyaaradda la saaray dharka isugu ma igu yiri ma dharaa iga maqan marka dharkaasi meel ay ka baxeen cid ka saartay ma ogid adiga waa gartay marka miyaan la isweydiinin oo taliska maadaama saraakiisha ciidanka aad tihiin miyaan la isweydiin oo Generaal Mahad ma isugu keen yeeray ma la isweydiiyay arrinta maya ilaa hadda lagama wada hadlin maya lisma weydiinin dharkaas yani aniga dharka sarkaala la soo diray xisaabtu sida ahaayay aniga 100 soo qaad iyo 500 soo qaad iyo 1 milyan soo qaad ana maalak shughul
sarkaalkii loo soo diray ayaa shaqo qoraa sida yani maxaa loo tirshay aniga hadii aan mas'uul ka ahay dharka xisaabtiisa dhan qaadada lahay ma garad waxaan dhinaca kale la xiriiray laba xidigle Cali Aadan waxaana uu ka gaabsaday inuu bixiyo waraysi faahfaahsan waxaanse ka soo xiganayaa oo uu yidhi arrimahaasi waa arrimo ciidan waa arrimo booliis afhayeenka booliiska waa joogaa wax aan uga hadlo barnaamijkaasi ma garanayo waxa kale oo laba xidigle Cali Aadan uu ii sheegay oo uu yidhi waxay u taalaa qofkii aniga wax igu soo eedaynaya inuu warqad ii soo qoro oo uu yidhaahdo waa lagu rabaa barnaamijkaasi waxba kama ogi ciddii dharka soo qaaday iyo ciddii saxeexday waxaas oo dhan qoraal ahaan xafiisyada booliiska ayay yaalaan arrintaas inaan ka hadlo ma doonayo haddaba su'aalaha muhiimka ah ee u baahan in la isweydiiyo waxa weeye maxaa tallaabo ah ee ay ciidanka booliisku qaadeen kadib markii uu digniintan bixiyey gaashaanle dhexe Mukhtaar Axmed Ibraahim taliyaha booliiska ee magaalada Baydhabo su'aal kale ayaa ah ma caddahay in dharkaasi ay ahaayeen kuwii loo adeegsaday weerarkii dhacay bishii Febraayo 13keedii taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay ii sheegeen inay baaritaan wadaan welina aysan ka hadli karin xaqiijinta arrintaasi haddii ay dharkaasi yihiin kuwii loo adeegsaday weerarka iyo in kale waxaase xogta aan ogaaday aan hordhigay taliyaha booliiska Soomaaliya Generaal Bashiir Cabdi Maxamed oo aan arrintan wax ka weydiiyey nimankii shabaab ahaa ee soo weeraray labada qarax ka sameeyay direyska booliiska xirnaayeen direyskaas ma raadiseen meel ma ku ogaateen halkuu ka baxay waa baarisa socota kaas wala baarayo waa arrin waa case file oo furan investigation waa socda is still going on waxaan maqlay marka taliya aan kula wadaagay waxaan maqlay in arrinta direyskaasi uu ka maqnaa direys loo diray booliiska koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo ma jirta arrintaas investigation wax confirmation ma jiraan waa investigation wala baaraya waxaan la baarin wixii ka soo baxay kordhac uma fiicna waa garta guddi waa maqan waa saraakiilda loo diray wala baaraya taas in dharkaas koonfurta galbeed ay ka maqan tahay taasna ma xaqiijisay ma la hubo wala baar wax la baaray wadiinaysa Haaruno wala baaraya baaritaanka wax ka soo baxan ku camal faleynaa maleeshiyada al-shabaab ee ka dambeysay weerarka dhacay 23kii bishii Febraayo waxay ahaayeen ilaa 5 qof taasina waxay ka dhigan tahay in weli al-shabaab ay haystaan ugu yaraan ilaa 5 joog waa haddii ay dhab tahay in 10 joog ee ka maqan ciidamada booliiska ee koonfur galbeed ay u gacan galeen al-shabaab laakiin gaashaanle dhexe Mukhtaar Axmed Ibraahim caad kama saarna waxa loo baahan yahay in lagu dhaqaaqo iyo tallaabada ay tahay in la sameeyo waxa uu leeyahay waa in laga ilaaliyaa dharka ciidanka gacmaha kooxaha dadka baabi'inaya in nimankan dhaqanwadayaasha si fudud diriiska ciidamada dawladda Soomaaliya laga aliyo si fudud ku gaarin oo ninkaas shaqadiisa hadinamo iyo nidaam iyo meelaha karaamad in ku shaqeeyo nimankan dhawaatada wado diriiskan si fudud in ku gaarna kulli ugu sheegi lahaa ugu digi lahaa maxaa dhiboo ka iman kara nimankaas haddii direyska ciidanka ay mar walba helaan kulli kan hadda ku sameeyno oo kale u fududaanaysa shaqada dhawaatada iyaga wadana u fududaanaysa gaashaanle dhexe Mukhtaar Axmed Ibraahim waxa uu doonayaa in baaritaankan laga gungaaro intaasi ka sokowna waxa uu wali dawladda Soomaaliya ka sugayaa inay soo arad bixiso 10 askari ee kamid ah ciidankiisa ee ay ka maqan yihiin 10 joog ee maqan waxaan waqti geliyay inaan la sheekaysto qaar kamid ah askarta dawladda ee ka soo kala jeeda qaybaha kala duwan ee ciidanka balse aan wax uga ogaado labiska iyo sida uu ku baxo ee ugu gacan galo kooxaha xaq jirka ah askartani ma aha kuwa loo ogol yahay inay saxaafadda la hadlaan haddii lagu ogaadana waxay weyn karaan shaqadooda sidaasi darteed ma sheegi kara magacyadooda hase yeeshee waxyaabaha ila wadaageen waxaa ka mid ah inay jiraan askar badan oo midkiiba haysto dhowr joog mid ka mid ah ayaa ii sheegay in direyska uu haysto uu ka yaraaday kadibna uu la xiriiray sarkaalka dhinaca saadka u qaabilsan ciidankiisa uuna u sheegay sida ay wax u jiraan kadibna loo soo dhiibay joog cusub iyada oo aan laga xaraynin joogii ka yaraaday dhawaan markii la qaybinayay direyska cusubna waxa uu ii sheegay inuu helay 2 joog oo kale labada jeerba waxa uu ku yaboohay inuu soo celiyo direyska ka yaraaday laakiin sarkaalka jooga saadka uu ku yiri soo celi markii aad awoodid inkastoo uusan wali celinin nasiib wanaag askarigaasi waxa uu hayaa 4 joog ee la siiyey laakiin waxa uu aaminsan yahay inay jiraan askar badan oo la mid ah oo ay dhici karto inay sii iibiyaan ama bixiyaan direyskaasi dheeraadka ah gaashaanle sare Cabdi Ibraahim Shaamow Cabdi Dheere waa taliyaha booliiska gobolka Shabeellada Hoose isaga iyo ciidanka hoos yimaada midna laguma soo eedeynin inuu direys ka maqan yahay laakiin waraysi guud oo aan la yeeshay waxaa ka muuqata in askarta marka la siiyo direys cusub aan laga xareynin direyskii hore
ha ka yaraadaan amaba ha duugoobaane ciidankaaga labiska la siiyaa ma hal joog ba mise waa laba joog qofkii mise uu ka badan yahay sideedaba adigu ma aragtay askari la siiyey laba joog wax ka badan ama hal joog wax ka badan ma arkin askari hal joog ka badan la siiyeyna ma arkin marka askarigu 30 maalmood wuxuu ku shaqeeyaa miya hal joog maya 30 iyo ama sanad wuxuu ku shaqeeyaba askariga waxa weeye wuxuuna waa dhar waaye dariiskii maxay ahaday halka la kaliya mid ma hore loo qaatay jir maxay ahaday waa laga yaabo 3 bilood hore in dariis la qaatay iska bedeli karaa waa gartay marka dirays cusub uu yimaado dirayskii hore lama soo xareeyo ma uu heestaa askariga uu heestaa waa siga bedelaa uu heestaa waxa kale oo aan la sheekaystay askar ii sheegtay in labis la siiyo askartii hore ah howlgabka noqotay ama kuwa curyaamiinta ah askarta noocan ah looguma talagelin inay ku soo shaqo tagaan labiska la siiyo laakiin waxaa loo siiyaa oo keliya in maalmaha ay jiraan munaasabadaha ama booqashada qof mas'uul ah oo sare ay ku soo labistaan munaasabadahaas iyo booqashooyinkaasina ma aha kuwa bil kasta dhaca inta ka dhaxaysana labiskaasi waxa uu ka maqan yahay gacanta dawladda mid ka mid ah saraakiishu waxa uu ii sheegay in askartaasi hore ee la siiyey dirayska qaarkood aysan bahaysanin dirayskaasi xataa xilliga ay jiraan munaasabadahaasi maleeshiyada al-shabaab ee hadda ka hor weerar ka geystay hoteelo iyo goobo kale oo muhiim ah oo ku yaala magaalada Muqdisho waxay ku labisnaayeen dharka militariga waxaa sidoo kale iyaduna jirtay weerar al-shabaab ay ku qaadeen saldhigyada booliiska ee magaalooyinka Ceelwaaq, Beled Xaawo, Afgooye, Warmaxun iyo meelo kale waxayna u badan tahay in labis ka badan kan hadda la tuhunsan yahay inuu maqan yahay uu ku jiro gacanta maleeshiyadka al-shabaab